السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا جماعة أرضي الصومالية والله أقوم من يوتيوب التليجرام channel في أرضي السيد الخاصة and ما أنتو حربانا كهذلو عفسيدة fear and عفسيدو وحياة بدن بسوق أن كويس قفك بين عالم كأ لكن سوق أي قفك طبعا عفسيدة براية right عفسيدة واحد براية منها سوق أي براية عفسيدو نوع واحد أديك مركزي هب كلاعد وأركته وعفسيدو وأول and waxayna ka mid tahay emotions waa maxay shucuurta qofka bini'aadamka uu bixiyo ayay ka mid tahay nin lagu magacaabo Paul Ekman oo psychologist ah 1970 buu soo saaray waxyaabaha shucuurta qofka bini'aadamka uu dareemo ay ka mid tahay labada cabsida ay ka mid tahay farxadda waxyaabahaas kullu ku qeexay waa shucuur qofka bini'aadamka uu dareemo taasoo maskaxdiisa ama aqligiisa uu qofkaas ka dareemo kadibna jirka intiisa kale ay isu bedesho waxa loo yaqaano markaasna signal ay bixinaysa jirka bini'aadamka inuu dareemo shucuurtaas laga arkayo shucuurtu waa laga arkaa qofka jirkiisa hadduu faraxsan yahay wax ka arkaysaa wejigiisa inuu dhoola cadeynayo inuu faraxsan waa ka arkaysaa hadduu xanaaqsan yahay wejigiisu guuraya indhihiisu ruubsaya waxyaaba badan indhuhu banaanka waxyaaba marka wax qofka bini'aadamka ah la fahmo maanta marka waxaan rabaa inaan saarno xooggeena fear ama cabsida shucuurta cabsida ah sababta u dareemo ilaahay hadda qaar baa isweydiinaya intaan guda gelin waxaan rabaa insha Allah inaan idin sheego inaan qabanayo koorsadaasoo waxaan qabanayaa waa arday kooban ilaa iyo 30 ilaa iyo 25 adoo ilaa iyo 30 arday inay ka badan insha Allah koorsadaasna waxay noqonaysaa psychology master oo class dhan oo soconaya adoo ilaa iyo bil insha Allah bishaas ayaan waxaan rabaa inaan ku soo saaro walaalo badan oo markaa psychology aad u fahmo oo mataqaanaa cabsida iyo griefka iyo waxyaabo badan emotionka la bari doono siyaabaha ay ugu soo shaxbaxaan qofka jirkiisa maxaa sababo maxay tahay waxyaabaha ay aaminsan yihiin sababaya inay waxyaabahaas kulli in la baro insha Allah waana wax koorsada qusayso oo mental activity-ga ama mentality-ga qusayso maskaxiyan qofka ama aqliyan in markaas suuqa uu u fahmo insha Allah koorsada marka bishan bay bilaabanaysaa dhamaadkeeda kowdeeda inta markaa ka hadhay 10 bil waxa soconaya isqorista insha Allah in qof kasta uu soo xaadiro isqoro kadibna inaguna in adeegii marka aan u siino si hufnaan insha Allah koorsada marka arday kooban baa la qaadanaya marka 30 qof dhaho aniga go'aankayga waaye go'aanka aan isna hadduu ka buuxsamo markaas waa dib kale waa okay marka 30 qof ayaan qabanaynaa insha Allah koorsada waxayna bilaabanaysaa kowda bishan insha Allah ee bilaabanaysaa marka arkay duruufo jira iyo ardayda badi waxay ka cabanayaan ay tahay psychology ayaa gartay inaan koorsada isugu dabarido inuu diyaariyo ardayda walaalaha Soomaaliya luqadooda Soomaaliya u dhaxaysa fahamkooda iyo qof khibradii u leh qofka suu wax u fahansiin lahaa uu bixinayo oo ilaayo xirfad 8 sano dhawaad 9 dhawaad leh xirfad qof suu wax uga dhaadhicina ma fahansiina marka insha Allah aan faa'iido weyn baan ka qaadan doontaa insha Allah aydan wiligiin aliin ka shaqayn doonto noloshiina ka dhima maaha kaliya suuqan xirfadan ganacsiga suuqa kaliya ganacsi walba oo aad rabto marka aad uga faa'iideysan karto insha Allah marka sidaas ay sheegay okay haddaan guda galo horta marka kuwaad waa maxay cabsidu markasta markaan dhahay waa natural powerful and primitive human emotion waa shucuur awood badan shucuurtaasoo ah dabiici qofka bini'aadamka cabsida dabiici waaye ma la jari karo wax ma aha laga takhalusi karo waa dabiici cabsidu fear alerts us to the presence of danger cabsidu markasta waxay alert ama signal noogu tahay in khatar markaan soo wajahaysa ay tahay ay wax kale oo bala ma jiraan physical or psychological hab marka si physical wixii aad u arkayso oo soo soconayo ama wax si psychological ah oo maskaxiyan ama aqliyan aad u dareemayso
labadaba hadda hadda niyeysato cabsi iyo wax sawirato waa cabsanaysaa haddii aad physical ahaan u aragto wax ku cabsi gelinaya sida dabka oo kale ama bahalada soconaya oo kale waxyaabaha kullina waa waxyaabo ama khasaaro aad adigu markaa lugaha ku doonto waxyaabaha kulli cabsidaysa marka cabsida sidaas waaye wax balaa ma jiraan laba wax biochemical response iyo waxa jiro waxa loo yaqaan emotional response labada biochemical response iyo emotional response ayuu qofku sameeyaa marka ina tusaalaha in fiyoon cabsida waxay tahay aad conceptiga ka qaadataan oo muhiim ka yahay markuu cabsida sameynayo biochemical reaction waa qofka inuu marka waxaan qoraaladan adaa akhrisan karo dabcan laakiin aniga si toos ah ayaan kugu shubay casharka si aad u soo ceshato macluumaadkeena wax maanta dhan akhriyo laakiin adiga waa inaad markaas aad ku soo ceshato kadibna aad fahanto okay biochemicalka reactionka ah waa qofka inuu cabsida u arko physical reaction okay marka uu arko si physical ah ay u imaanayso maxaa kamid ah physical reaction waxa aad arki kartaa sida dhididka oo kale wadnihii ku quraacmaya oo kale iyo waxyaabahaas kulli baa loo yaqaan physical reaction okay waxa kaloo jiro waxa loo yaqaano biochemical reaction sidaas ayuu ku gaabay waa inaad physical aragto okay inaad cabsida aad u jeedo ama jirkaaga ay sameynayo markastuu jirkaagu sameynayo physical reaction sida garaaca wadnaha ayaa loo yaqaan biochemical reaction oo gudaha ayaa ka dareemaysaa wada garaaca wadnaha iyo kadibna gacmahaaga waxa ka arkaysaa ama ka dareemaysaa dhididkii waxaas ayaa loo yaqaanaa biochemical reaction physical response marka jiro qofka physical response waa markii aad suuqa dagaalka ama cararka aad la gelayso okay waxyaabaha kulli waa fight oo sida revenge trading oo kala sameeyay inta xanaaqda aad suuq la dagaalameyso suuqa cadowga u yeeshato waxyaaba ama qaar in aad looska kugu socdo arki weeda aad iskaga kacdo wax shahad oo iska dhigto oo kale aad okay labadaas wax ayuu marka tusaale ahaan suuqa kugu siiyay sida caadiga waxa waaye fight or flight response waxa la ayaa jiro oo jirku isu diyaarinayo waana physical response marka qofka uu sameynayo inuu wixii la dagaalo oo ku soo baxo tusaale wax ku cabsi geliyo qofka ku cabsi geliyo mindi u soo inaad mindida ka cararto iyo inaad isla markaa mindida iska qabato labada mid bay ku sakhiraysaa cabsidu inay ku howlgeliso waxa loo yaqaano fight or flight ayaa loo yaqaan tusaale kale sina guriga dabka kaca dabkii baa aragtay dabkii inaad cararto iyo inaad dabka haas dhahdo bal dabkaas aqlixnimada uu dabkaas aad dhahdo intee qof aad aragteen dab ku dhex dhimanayo tusaale wax ka soo qaado bisira ama wax ka soo qabixi bisira kadib dabkii baa saameyn qofku dab markan waa carab labadaas responsible physical responsible loo yaqaan waxaan dhahay biochemical reaction waa maxay inaad garaaci wadnaha iyo dhididka iyo kulli labadaas ayaa cabsidu saameysan physical response waa maxay inaad wixii marka aad wajahdo ama aad ka cararto horto emotional response-guna dabcan waa dareemaha ayuu ku xadidaa qofka hadduu waxa uu markaas uu arkayo dareemo ayuu soo shucuur buu sameynaya shucuurtaas oo hadduu arko loss oo ku socdo oo kale xanaaq baa imaanaya hadduu arko oo kale asoo sameynaya waxyaabo xiiso geli excitement imaanaysa iyo farxad waxyaabaha kulli baa loo yaqaan emotional response oo qofka aad ka arki karto marka wejigiisa ama ficiladiisa uu sameynaya aad ka dareemi karto taas ayaa loo yaqaanaa emotional response waana waxa niyad jabka qofka dareemayso niyad jabka xanaaqa dhibka waxyaabaha kulli ayuu cabsida sameeyaa waana markii uu marxaladaasi ku kaco qofka ayuu kasoo shaaca annaga marka cabsida tradingka ayaa rabnaa waxaan inaan idinku dheereed marayo conceptiga inaan idinka cabsida tradingka dhowrkan waxyaabood ay wadataa in qofka uu fursada ka tegayso oo kale inuu ka baqo fear of missing out baa loo yaqaan fear of losing qofku inuu ka baqo inuu khasaarayo taasoo marnaba uusan tradekiiba qaadanayn sababtoo uu ka baqaya maanta wuxuu raadinaya boqolkiiba boqol inuu badiyo uu set up boqolkiiba boqol fiirna adhoodana set up waa ka tegay fear of being wrong wuxuu ka baqaya inuu khaldamo fear of leaving money on the table midda labaadba cabsida ugu weyn waxa waaye qofka bini'aadanka haysto laba inuu suuqi lacagta uga dhex tago ya
ama inuu lacag uu hayo oo looskiisi yani lacag uu hayo meeshuu ka bixi lahaa inuu maanta dhan stop loss sikinayo uu isleeyahay lacag baa kaa cararaysa oo kula aaminsan kadibna uu khasaaro halkaas oo kale maxaa marka annaga sababayo horta cabsida waxyaabo badan sabab sida daan idin sheegay environmentiga waxaad aragto si life ayaa sababa laakiin trading maxaa sababaya uncertainty wax loo yaqaan the unknown wax loo yaqaan cabsideena maxaa sababaya waxaan anagu garanayn unknownable waliba dee aanan garan doonin ayaa sababaya sababtoo ah suuqan anaga boqolkiiba boqol aaminsan ma jiro dadka kulli arag psychologigooda dhisay responsigooda waxa waaye suuqan waa neutral state of mind dhexdhexaad ba ka yimid may aaminin suuqan wax boqolkiiba boqol aa jira ma jiraan so waxay ogyihin waxaan waxaysan garanayn waaye so riskiga ayay aqbaleen waxyaabo badan looska aqbaleen that's why marka laakiin adiga de unknown waxaan haddii aadan garan cabsi bay kugu sabaysaa haddaadan garan waxa kasoo baxaya khasaare iyo faa'iida haddaadan garan waa uncertaintyga taas ayaa cabsideena sababaysa marka calaamadaheeda wata haddaan isha dhididka gacmuhu dhidida murquhu gariira caloosha upset stomach caloosha budbuda garaaca wadnaha oo saa'id noqda naqsiga kugu dhaga waxyaabaha kulli waa calaamadaha marka waa inaad fahanto cabsidu aad bay muhiim u tahay qofka bini'aadamka ah waa shucuur aad iyo aad muhiim ugu ah qofka bini'aadamka ah markasta signalka cabsida ah ogow wax cusub baa baranaysaa haddana ogow wax khatar ayaa la kulmaysaa okay marka sababtaas ay ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu abuuray waana raxmad dhanka ilaahay ah haddii maanta adduunka la kala cabsadeen ma jirteen kala dambeyn okay ma jirteen kala dambeyn dushaada iska mari lahaa xoolo ayaa noqon lahayn dad aan kala cabsan baa noqon lahayn kala dambeyn lahayn baa noqon lahayn waa la isgumaadi lahaa waa la isdhici cusub marka cabsida ayaa keenaysa qof kasta maanta askarta waa laga baqaya waa aragteen dowladda waa laga baqaya waa aragteen nidaamka systemka waa laga baqaya xarig baa laga baqaya xabsi waxyaabaha kulli cabsida ayaa sabaysa marka ilaahay inaan ku kala dambeyn unku noogu sameeyo waa mahad ilaahay marka furahaaga aad ku noqon karto consistent trader ama qof profitable ah oo dhaqaale soo qasbay waa in aqligaaga keeno suuqan okay inuusan ahayn aqliga aad lacag kaga sameynayso waa inaad fahanto the mindset that brought you into trading is not the mindset that will produce success in trading you have to believe that maanta waxyaabo badan ayaa absent perception badan assumption badan oo been ah ayaad ka dhaadhicisay subconscious mindkaaga oo ah emotional mindka haddii emotional mindka aad ka dhaadhicisay waxyaabo been ah wuxuu arkaya isqaban weydo emotionka halkaas ka imaanaya cabsida halkaas ka imaanaysa wax beenaa ku aruursay boqolkiiba boqol in wax jiraan in loo soo jeeyo in khatar jiro okay subconscious mind marka aragta khatar maxay sameynaysaa emotional cabsi baa imaanaysa waayo waxay aamintay iyo waxay arkayso isku mid maaha halkaas waxaa jiro clash ayaa jira clashkaas markuu dhacana emotion ayaa imaanaya waana shucuurta emotionkana kadib qofku wuu dareemaya si aad u badbaado oo neutral state of mind u noqoto waa in wax saxan perception saxan aad aaminto kadibna aad subconscious mindkaaga ay si toos ugu gudbiso taas ayaa sababta marka inaad trade marka qaadaysa aad baqayn marka xakameynaysa aad baqayn aadan kala jeclayn win or loss the brain on fear until mastered fear blocks development of potential hadduu maskaxda cabsida ka buuxdo ilaa aad barato aqligaaga iyo maskaxdaada si iskula shaqeynayaan ama aqliyaadkaaga si iskula shaqeynayaan cabsida ayaa kaa xiraysa inaad korto ama aqoonkaaga koriso ama trading careerkaaga uu ku noqdo marka haddaad rabto inaad professional trader noqoto waa inaad cabsida ka hortagtaa ima inaad cabsida ka cararto maaha inaad la dagaasho you have to perceive calaamadahan ayuu leeyahay horta wax kastoo emotionku maxaa ku tilmaana waa farxadda waxyaabo badan calaamadahan leeyihiin calaamadahan elementskan ama tiirarkan afartan tiir ayaan ka soo qaadanay waa kicista waxyaabaha marka ay kugu dhiirigelinayso inaad samayso oo loo yaqaan reactionka iyo waxa jira wax loo yaqaano iyo response laakiin badi dadka reaction ayuu badan dadka aqligooda u saaxiibka ah reaction ayuu badan tusaale haddaan isla qof baa arkaysa emotionkiisa xanaaq baa kacaya wuu xanaaqaya isla marka xanaaqaas wuxuu ku dhiirigeliyo asagoo fakarin buu sameynaya okay tusaaleena ku sheegay annaga waxa dhanaa hubsiimo hal baa la sita soomaalida mahayadu waa cajaayib okay hubsiimo hal baa la sita waa waxay kugu dhiirigelinaysa waxyaabaha aad ka hubsan
oo ka fiirsan bay kugu dhiirigelin. That's why waxaa aragtay walaalka oo calooshiisii mindi ku taala ku yimi ooyi isla markii emotionka kacay waayo waxaa aragtay danger walaalka in khatar kadib qorigaaga la booday kii wax soo yeelay baa aad soo dishay dhow walaalka soo laabtay wuxuu ku yiri walaal maxaan ku soo dishanaa ka gardarnaa ya anaa ka gardarnaa oo khalad la tagay marka subinti ila isla markaas maxaa dhacay inaad wixii ka shalaysa asamiis you have to regret shalaytada marka saas ugu imaadaa waayo qofka bini'aadamka wuxuu ka fiirsan ku degdaya motivation ayaana jira oo ku dhiirigelina kadib wixii waxay bedelaysaa meaning macna ayay yeelanaysaa kadibna wixii dareen ayuu isu bedelaya meaning iyo dareen buu soo socdaa marka sidaas si lamid ah process ayuu leeyahay cabsida sida emotionada waayo cabsida wuxuu ku mid yahay shucuurta sida farxadda ayuu ku mid yahay marka cabsidu markay maskaxda ama aqliga inteedan aqliga uu aysan afduubin calaamadahan afartan tiir ayay martaa inay kacdo in naqaska qofka uu jirka inuu dareemo mataqaanaa jirkiyo tenseness noqonayo in garaac wadnuhu uu arko kor u kacayo okay jirkii shucuurtaas ayaa isbedelaysa in jirkii uu xoogaa gedgariirayo jirkii uu dareemayo that's why qof markuu xanaaqaad arkaysa gacantiisa gedgariiraysa sida indhaha taagaya because of waxaa jiraayo waa arousal qofkaas wuu kacay waxaa kacay shucuurtiisii baa kacday markaas maxaa dhacay markii saas dhaco isla markaa uu shucuurtiisa kacayso hadduusan ahayn qof u saaxiiba aqligiis waa afduubmaya that's why marka emotional motivationka marka saddexdaa wax ayay ku dhiirigelinaysaa qofkii inuu markaas inuu wixii avoid sameeyo okay inuu avoid waa maxay inuu cararo isqariyo istaago ama isdhiibo intaas ayay isu bedelaysaa ama hesitation inuu wixii kala labeeyo okay marka attack ayaa jira bisna inaa wixii aad markaa aragto xanaaq isu bedelayo xanaaq waliba kadibna revenge trading ayaa naqaan anaga qof markuu attack sameynayo tradingka is attacking the market suuqigu dagaal kula jira uu argoosanayo lacagteedii sabab baa la iga saaray khasaaro dhan mar inuu qaato that's why revenge tradingka halkaas ayuu ka imaan approach waa waxa hadafka ah calaamada tiktok xasaar waxa uu hadafka qofka la rabo in la gaaro markasta oo aad loss aragto ama markasta khasaaro aad openness waa inaad dareento waa in aad threadkaas aad arkayso losska waa in openness aad dareento mindful trading ayaa loo yaqaan waa waxa la gaaro waa inaad fahanto beri kale fursad ayaa jirta beri dambe fursad ayaa jirta 5 sano kale ku sii jirta suuqa ganacsiga khasaaro waa leeyahay dhib mal waxyaabaha kullu waa inaad fahanto openness waa inta the way you approach marka si lamid ah marka yarkii walaalkiis intuu qoriga qaato hadduu approach sameyn lahaa walaalkiis wareysan lahaa walaal saasaa kuu galay walaal ku yeelay waa intuu uusan safety la boodin safe la bood baa naqaanaa isma laakiin isla markuu muxuu sameeyey attack buu sameeyey waa marka xanaaqa waa markuu walaalkiis usoo arbooynayo oo sameynayo revenging okay marka shucuurtu intaas ayay leeyihiin intaasay kugu dhiirigelinaysa inaad sameyso inaa wixii kaasoo qofkii uu hadduu avoidkana waa waxyaabaha kugu sababayo sometimes losskii kugu socdo inaad aadan baxirin okay trade-ka aad xirin markii khasaaro kugu imaada isla marka attack aad sameynayso labada process ayaa anaga maraynaa tradingka avoid iyo attack inaad losskii kugu socdo aad xirin oo aad freeze noqoto aad indhaha un ka fiirsato suuqiyo kugu socdo maanta dhan iyo markii aad miirkaagu soo laabtana xanaaqi uu halkaas aad sameynayso negative emotional meaning baa jira markasta oo losski waxyaabo badan ayuu kugu abuurayaa oo ah emotional meaning oo adiga markaa self beliefingkaagi aad dhisayso waxaad iska aaminayso oo subconscious mindkaaga gala sida powerlessness daciifnimo inaad daciif tahay waxba qabsan karin unworthy inaad waxba istaahilin oo madaxa iska qaraaco waxyaabaha kulli waa self wax la yiraahdo negative emotional meaning it's very important in course qof aan waxba yani u buuxin aqoonti waa ka dhiman wax badan yani waxa ma qabsan karin waxyaabahaas kulli waa self limiting beliefs okay waxa dhisayso waa self image wax loo yaqaano hadii intaas ay joogtay soo markasta niyadaadii iyo maskaxdaadii iyo aqligaaga ka dhacdhacinayso naftaadii daciifnimo aad ka aaminto way aruurayaan waxay noqonayaan habit
markas ilaa ultima aad wax aan dhibta aad dhibsanayso niyadaadi aad suuq iskaga tagayso ba iskaga tagaysa that's why aad iskaga tagayso okay waa iskaga tagaysa waan waxyaabaha self limited beliefs kaaga inaad horumar gaari karin inaad cilmi baran karin inaad khasaarada ka bixi doonin waxyaabaha kulli ayaa loo yaqaan marka feeling dareenka iyo macnaha waa labadaba isla socdaan oo waxaad adiga macnaysato baad dareemaysaa haddii aad ka waran daciifnimo dareento aad aaminto daciifnimo aad fasirato waad dareemaysaa daciifnimo aad dareemaysaa inaad istaahil ka waran haddii aad safirato dee waad dareemaysaa inaad waxba istaahil taas waa khasaaraha maalinka kugu soo laalaabanaya marka haddii aad markasta dareemaysa cabsi ficilo cabsi ku argagax gelinaya ayaa sameynaysa ama u fakeraysa marka waa inaad fahanto aaminaad iyo cabsi horta ninkan Napoleon Hill haddaad buuggiisa aad akhrin waa kuga talina akhri buugaag badan buu qoray weli buuggiisa Think and Grow Rich aad buu u fiican yahay and you have to understand marka hore waa inaad aad u fahanto you cannot have faith and fear at the same time you can only have one or the other okay waxaa lagu yidhi aaminaad iyo cabsi hal meel ma wada galaan labadooda mid unbaa joogaysa mid unbaa haysan ama midda kale ayaa joogaysa labada inaad u fahanto waa yacni hal meel ma wada galayaan meesha cabsi soo gasho aaminaad ma jirto waxaad okay meesha aaminaad imaatan cabsi ma jirto taas waa inaan dhahayo aamina strategigina aamina khasaare loo suuqan jiro perception fiican dhisa cabsi markaa ma jirayso ma isla joogi karaan labadan ma isla joogi karaan okay ma isla joogi karaan faith and fear make poor pitfalls where one is found the other cannot exist labada waxaa la yidhi hal sariir ma wada seexan karaan ma wada seexan karaan hal sariir mid markii aad fahanto tan kale ma sii joogayso haddii cabsida ay kaa tanbadato aaminaada ma joogayso haddii aaminaadi aad fahanto cabsida ma joogayso that's it marka intaas ayaan rabaa inaan fahansiiyo cabsida sidaas waa guys marka waa in faith aad aamintaan midda aan rabo inaan inta soo xawaa hadda tusaale yar baan tusaya suuqan set upkan lacagtan ayaa ku jira waa risk free trade marka halkaan ka qaadanayo candle-kana horta suuq confirmation halkaas candle-ka ilaa halka u jeedaan candle-ka week sample samaysto calaamad aniga ita rejection so candle-kan ayaan ka galay hadda waa risk free trade wax loo yaqaan wax risk ma iisaan okay wax risk table-ka imisaan profit unbaa ii socda okay target-kaygana waa ilaa hadda waana xakameynaya sida lacagta ay noqonayso waana lacagta maalinta hore aan idin sheegayo so lacagtan markaan qaadanayo xalay ilaa iyo xoogaa waxaa arkaya in xoogaa soo laabanayso okay soo laabanayso saa ujeedaan wixii samaysay retracement that's why fear of leaving money on the table waxaa marka you leave money on the table because of waxaa ka baqaysaa tan dhaqaaqan retracementiga waxaa moodaysaa inuu suuqa lacagta kaa qaadanayo that's why dad ba arkaysaa lacagta bay xirayaan iska xirayaan cabsi darteed u xirayaan way xirayaan lacagti isdaayaa lacagta way kaa qaadanaysaa suuqan ma ogo maxaa u baqaysaa markay cabsida imaanto waxa waaye ma aadan aqbalin you don't have faith ma aadan aaminin riskigaaga ma aadan aqbalin you didn't accept the risk that means risk ana maxaa ka baqayaa lacagta ma xiraay sababtoo risk baa ogolaaday halkan buu yaala stop loss-kayga waxaa ogolaaday risk intaas ilaa $300 waan khasaaray waan ogolaaday ilaa $150 wax iga gala ma laha hadii lacagtu imaato igaga dhacdo that's what waxaan rabay waxaan aniga aaminay oo arrin so qofka daarata lacag xiraaya ama markii lacagtu soo artay cabsanaya means ma loss ma aqbalin dad badan hadda waxa aaminsan aan risk taker ay sababtoo stop loss isticmaalaa oo trade ayaan qaata risk ayaan ah markii lacag soo laabtan uu yaabaya uu baqaya maxay tahay waxaas sababtoo risk taker
that's why lacagta daamarka hatta productive ku jirta aan waa fahansan inay jabsanayso hadda meel xasaasi taagada soo meesha xasaasi taagada waxaan rabaa inay jabsato ama inaan ka dareemo in lacagta ay soo laabanayso waxa kameen kadib haddii aan ka dareemo lacagta ay imaan karto lower waa iska xiraaya profitkayga aan u xiraaya decision-kayga ayaan qaadanayaa go'aanka that's why marka retracement-ga inaad ka baqan that's money leaving money on the table haddii kale waa ka baxaysaa lacagta saamiiska uga tagta adhowda ka shaqeynaysa you don't have regret ma jiro marka that's why responsive inaan noqono waa reactive dan man loo baahan reaction dan laga baahan response you only response qofku wuxuu noqdaa markii thinking mind soo joogto conscious mind ka markii joogto wax aan kartaa so aqbal loss inuu jiro and you will make profit and when it markii loss kugu imaadana you don't care state of mind ka war qofka duu sameeyo wax loo yaqaan don't care state of mind hebel ma kala jecel okay maxaa loo yaqaanaa aqligaaga wuxuu ku sugan yahay xaalad aysan wax dhacaya loss iyo win uusan kala jecel waan hadafkana loo baahan taasoo loo yaqaano neutral state of mind qofka inuu dhexdhexaad inuu noqdo suuqa waa neutral state of mind okay iska daa xanaaqa iska daa walwalka iska daa anxiety that because of neutral state of mind oo baahana dhexdhexaad inaad ka ahaato hadafkeena annaga waxa maskaxdeena inay ahaato tan waa alxamdulillah anuu ay tahay idinkana saas inay noqotaan neutral state of mind xanaaq marka ma imaana you don't care win or loss don't care that's why execute waxa sameeyay objectively inaad set up kaaga ilaashato trading kaaga aad plan kaaga raacdo oo set up yada si execute aad markasta u gasho overtime loss kaaga win kaaga badan neutral state of mind war qof aan suuqan ka saar ma jiro wallahi dad kulli inba waxay sameeyeen loss ki aqbaleen dad wax ka bil waxay ku jiraan loss asbuucanay way soo martay asbuucan loss todobari ama waxa ka 8 bir ama 9 ama 10 bir loss xiriir ay u dhacayso ama 20 bir ana kala jeclaan 20 bir kala win 20 bir laba jibaarkeeda ama 3 jibaarkeeda faa'iido ku soo noqonaysa neutral state of mind ay la baahan kaas marka inta saxar ay rajayna waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa inaad soo diiwaangelisan koorsada anigu ardada positive ka ay aaminsan inay soo diiwaangeliyaan iyo inta ku cusub channelkan oo ayagana danaynaysa insha Allah ilaa iyo adigu bishan kowdeeda ayay bilaabanaysaa haddii kaa buuxsanto nasiibkaaga haddii waa adiga nasiib darrada haddii aad soo qaabashana waa adiga wanaagaaga iyo aqligaaga aad isticmaashay inaad isku soo diiwaangasho koorsada insha Allah bilba inoo socon doontaa hadduu alla idmo bishaas oo service fiican oo waxyaabo badan la idinka saxaayo waxyaabo badan baa idin dhahay oo aqligiina ku saabsan in guulna aad gaari doontaa insha Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh